shaaha iiraan markuu khumeyni uu inqilaab sameeyey adduunyada caalam alcarabi wax badan baa iska bedelay waxa iska bedelay wuxuu noqday khumeyni oo leh anuu shariicada islaamkan ku xukumaya oo markaa criticismna uu soo jeediyey dadka sacuudigu wuxuu oran jiray shariicada islaamkan ku xukuma markaa criticismna uu soo jeediyey sacuudigii inaanu shariicada ku xukumin ee uu dabadhilif Mareykan iska yahay Mareykanka u shaqeeyo caynkaas oo saas waxaas uu galay markaa tii waxay noqotay iska caabin markaa in la sameeyo iska caabinta waxay noqotay inay sarkaan maxamed cabdiwahaab hore intaan khumeyniba u imanin dadka qaar baa ku dacaydeyn jiray inuu nin maxaan ku raahday hanfar la oran jiray uu tababaray oo maxaan ku raahday mukhaabaraadka Ingiriiska ahaa 1700 something uu tababaray waxan ka dhaadhiciyay uu yahay camiil lagu dhex abuuray muslimiinta ayaa dadka qaar ka arkaan Allahu a'lam laakiin marka dambe way iska caday in ay wahaabiyadii iyo Mareykankii isla falgaleen waayo waxa la doonayay in la badbaadiyo saliidda khaliijka oo laga badbaadiyo maxay khumeyni laga badbaadiyo khumeyni oo yiri markaa waxaan doonayaa shariicada islaamka inaan ku dabaqo si ka wanaagsan si sacuudiga caynkan ugu dabaqay hadda sacuudiga iyo shaahi iiraan oo khumeyni ka horeeyay saaxiib bay ahaayeen sacuudiga khaliijka iyo shaahi iiraan saaxiib bay ahaayeen hadda shiici baan u ahaa laakiin dee ma oran shariicad baan ku xukumay wax kale aan keenay khumeyni markuu shariicadii wax baan ku xukumay waa ninkan waa la inaga qabta markaa deedna dagaal baa la galay dagaalka waxa engineer gareeyay maxaan ku raahday Mareykanka siyaayada Mareykanka iyo maxaan ku raahday Sacuudi Arabiya waxaana la bilaabay in caalamka islaami laga gaaro dooda noocaas markaa waxa la alifay intaas oo kitaab oo yar yar oo wahabiyada oo qurqurux badan oo kalar laho cusub oo markaa amba wax lagu shiray geelayo amba dadka la qabanayo lagu bahalaynayo oo lagu kaanteeyo markaa shabaab fara badan oo adduunka ka baxay biil baa la siinay raabidada caalamka islaami iyaduna lacag bay bixinaysay daar alifta meel la yiraahdo oo iftaha sacuudiga lacag buu bixinay dadka ugu badan ee ka faa'iideystay waxa ay ahaayeen Afghanistanida iyo Soomaalida iyo Yamanta dadka masaakiinta ah ee aan waxba haysan saddexda dalan ku sheegay waa fuqara almost iyaga ayaa markaa masaariif inta caruurta la qaado xagga la geeyo iskuuladooda jaamacadooda wax ku soo bartaan ayaa deedna matqaana lacag joogto ah la siinay oo la oranayay fidiya manhajka wahaabiga oo looga jeedo marka dambe walaa inay helaan dad raacsan iyaga oo mataqaana maxaan ku u hiiliya oo uga hiiliya masaa'ibka iban doonaya haday dawladda timaadiyo Iran tan iyo xataa ikhwaan muslimiinka laftooda iyo waxa soo dhanba uga hiiliya marka ikhwaan muslimiinkuna iyaguna jamaal bay ka soo baxsadeen khaliijkay joogaan khaliijka ha joogaane way istaad raacinayaan wahabiyadii oo wax isku daad raacinayaan de waa nin doctor waa nin professoradii Masar joogay ikhwaan muslimiinka oo dhani Sacuudiga khaliijka yimaadeen markay yimaadeen waxay kaliftay inay wahabiyada la saaxiibaan oo ay say u arkayaan u arkaan oo ay iskala noolaadaan iyaga oo aanay iyagoo arkayna hadda qaldan yihiin haddana inaanay qaladkooda aanay muujin iyaguna dormant state iska aamusan ayay markaa galeen wahabiyadii baa markaa xoog u fiday ilaa Nigeria ilaa Boko Haram ilaa meel walba ilaa Afghanistan meel walba way gaadhay yay la dagaalamaysaa markaa deeto koow waxa la dagaalamayaa oo dalka muslimiinta Yemen waa la baabiyay nin la yiraahdo maxaan ku raahday in ay tababareen iyagu soo garmays alwaadici soo garmays loo oran jiray kaasa muqbil alwaadici ninkaasa mataqaana lagu tababaray Sacuudi Arabiya waa la keenay waxa lagu saani gareeyo lagu wajahay xuutiyiinta iyo oo iyagu aan shiicar rasmi ahayn laakiin iska ah in yaani ka fog wahabiyadina xaqan oo aan shiicana ahayn u dhaxeeya labadii ayaa lagu wajahay oo nimanka ka qabta meesha yaanay cid kale soo galin deedna dagaalkii halka ka dhacay ee ka dhacay maxaan ku rahay wahabiyadii muqbil alwaadici hogaaminay iyo xuutiyiinta waa ka ilaa maanta socda waa taayibani ku baabaaday inaga waxay noo soo direen اتحادكو wuxuu ahaa totally wax ka yimid maxaan ku raay Sacuudi Arabiya iyo mukhaabaraadka markaa Mareykanka oo lagu baabiinayay koow qolo markaa ikhwaan muslimiin oo shaqeynayay in laga masaxa meesha iyaga iyo in maxaan ku raay dhalinyarada Soomaaliyeed la geeyo dagaalka Afghanistan waa dagaalka Afghanistan markaa uu bilaabmay Khumeyni markaas uu isaguna bilaabmay soo garmaysid markaa dhalinyarada in la helo oo dhalinyarada markaa dagaalka halka la geeyo dagaalka waxa billions ku kharash gareeyay Mareykanka iyo Sacuudiga dikastoo taga mushaharkiisa lacagtiisa wixii waa la siinay dhalinyaro jaamacada aynu u diro Mareykan iyo meel joogay ayaa dagaalkii Afghanistan iyagu ku jireen la arkay marka iyagu waaba qiraal mabada firsana maanta Mareykankii waxa aynu sheegayno oo dhan inay isticmaaleen qiraal bay ku yihiin waxaad ka heli kartaa oo maalin dhaweyta soo dhigay amaantada ama soo dhigay Facebook soo dhigay waxaad ka heli kartaa iyadoo ay hadlayso gabadhii Clinton wasiir khaarijigii maxaan ku raay Mareykanka
clinton xaaskiisii waa tii obama u ahayd maxaan ku dhahay secretariga arrimaha dibadda u ah. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. iyadii baa hadlaysaa innaga abuurray bay leedahay qaacidaya ISIS iyo waxaan u dhamba yaa innagu markaynu abuurrayna innagii bay dagaal inagu qaadeen iyagii baynu imika la dagaalamayna nimankan imika la dagaalamaynaa waa nimankii inagu aynu abuurray markii yaa Rex Tillerson nin la yidhahdo isaguna Obama u ahaa maxaan ku dhahay Trump u ahaa yaa mar wasiirka daakhili secretary of maxaan ku dhahay foreign affairs ka qaabilsan isaguna uu ka hadlaya. The center has a number of elements to attack extremism around the world. One of the elements that we are visiting with them about, and they have already taken steps, the Saudis, is to publish new textbooks that go into the schools that are in the mosque around the world. These textbooks are to replace textbooks that are out there today that do advocate extreme Wahhabism viewpoints around the justification for violence. We've asked that they not just publish the new textbooks, we've asked that they retrieve the existing textbooks so we get those back. wuxuu leeyahay Sacuudiga waanu la hadalay waxaanu ku bahashan wahaabiyada ka joojiyay caalamka islaam iyo dalkiina kutubta aad ka qorteen wahaabiyada ee Sacuudi Arabiya lagu akhristo iyo kuwa aad dalalka adduunka geyseen ka soo ururiya idinku oo kuwa lid ku ah kuwa daabaca oo fidiya oo xagga geeya de fikradii iyagii bay ka hortimi ma inta caalamka islaamiga oo dhan burburisay ayay iyagiina markii dambe dawlad talaabo ninkii doona uma taqaan markaa samaysanay marka dunidiiba khalkhal ayay bahashi gelisay dabkii iyagu abuur waana qiraal kiisiyaada ku jira oo hadlaya waxa hadlaya Congress-kii Mareykanka oo markaa maxaan ku raahday dabagal arrinta ku sameeyay oo ragga aan ku sheegay intuu yeeray su'aalo weydiinaya oo su'aalihiisa aan ku sheegay dhamaantood kaga jawaabaya mar haddii Mareykanka isagu ka dawadiyo sacuudigii da amar baa la siiyey amarkii waa la furaya waa la sugayaa inuu fulo amarkii weliba amarku ma aha xisbi gaar inuu wato labada xisbiba dee gabadha Clinton waa dimuqraadi moogta Tillerson kan aan kuu sheegaa waa Republican yaa amar dawladda sacuudiga markuu bahalkii tarmeesha tagay uu la socday awaamirta la siiyey sacuudiga ka mid ahay ninkan la yidhaahdo maxaan ku dhahay imika meesha haystay weli alcaadigii wuu qaaday tallaabo oo dawladda badan oo dee waxaankaas oo xidhay way jiraan arrintii uu ka soo horjeeda marka garan mayno ilaa xadka ay socon doonto laakiin waxaan halkan message uga diraya dhalinyaradii 40 sanadood aan ku qaylinayay eenu lahayn war waxaan Mareykan iyo Sacuudi baa wada wahaabiyada war dalka ka daaya war fasahaadinina war dadka ha gaalaysiinina ee keentay itixaad ee keentay ictisaam ee keentay shabaab imika dagaalamaya ya ee adduunka kana Boko Haram iyo ISIS iyo maxaan ku raahday Taliban iyo balaayo keentay ya waxaan ka daaya dalka marka maanta inay gartaan iyagii oo toobad keenaan waa dhalinyaro badidoodu waa dhalinyaro maskaxda laga xaday rag waaweyn baa dambiga leh rag waaweynaha toobad keenaan oo hay yiraahdaan qalad baanu sameynay ilaahay dartii waanu ka soo noqon 40 sano ku qaylinay waxaan bilaabay 1981 baan bilaabay ilaa maalinka maanta waan qaylinay dibadda haddaan joogiyo gudaha haddaan joogaa Sacuudi Arabiya 20 sano ku noolaa waan dhalinyarada Sacuudiga waan doodi jiray sidaan aanu wada hadli jiray culimadooda waan doodi jiray sidaan aanu sheegay maanu sheegi jiray war waxaan Mareykan baa idin war waxaan u qalday war waxaan ka baxa war waxaan naga daaya Afghanistanna ruushadu haysto dee Suuriya 100 meelood oo kale uu ka taliyaa isaga iska tagay dhulka ka qaadi baa ka daayay ma jiraan cid markii arrimaha soo baxeen Mareykanka ka hadlayay Sacuudiga talaabooyin ka qaaday oo awal fikradda kugu diiday imka qaatay amba inta dib u doodeen ما يتكبر باكو جرا تكبر كل دين الإسلام كم ملك بجرا كبرياء يا خير الخضائين التواب كل ابن آدم خضاء وحديث النبي عليه الصلاة والسلام قف كستو بن آدم يقول قلدمي كرا وقلدما وخير الخضائين كوا قلدمي أنت ده عن قلدمي هو أوكي لكن كوا قلدمي خير الخضائين التوابون كوا وخير بدل وكوا كسر نقطة وكمان أنت وحلا وقف فردي علماء واوين اتحاد ككنتي
اعتصامka keentay ee wahaabiyada keentay inay toobad keenaan ilaahooda soo noqdaan oo mataqaana dadkan ay gaalaysiinayaan iyo murankan madhalayska ah ay ummadda ku hayaan ka daayaan oo dadka sidii wax loo bari lahaa diintooda loo fahansiin lahaa waa risaalad weyn baa inoo taalla maanta adduunka oo dhan muslimku marti u yahay islaamka qiimuhu leeyahay hadday wallaahi gaaladu ogaan lahayd maanta ma ogee badidoodu ma oga hadday ogaan lahaayeen wallahi naan midka kristanka ahaadeen kulligood way muslimi lahayn laakiin waa ay ciddii u sheegi lahayd af ingiriisi wadaadku ma yaqaano af faransiis ma yaqaano af ruush ma yaqaano af uu yaqaanaaba ma jiro in yaroo carabi oo halkan nacaamadu ka soo bartuu la badhabadhabadhayo dadka ku tawkiilaya oo maanta o dhan dadka ku haysa ayuu adduun iyo lacag iyo wax ka helaya uu soo rasiq master risiq ya kitaabkii ilaahay mataqaana iyo diinta ilaahay ka dhiganaya waxaa loo baahan yahay dhalinyaro mutacalimiina oo sayniska barata oo diinta barata dhalinyaro mutacalimiina oo dhaqaalaha barata oo diinta barata dhalinyaro mutacalimiina soo garamaysid oo injineering ka barata oo diintana barata oo markay baxaanay dadka kale u tagaan diintii ilaahay dadka u sheegi kara oo ka dhaadhicin kara waa la soo wada muslimi laha waayo wax maanta xataa intaa gaaladu maanta haystaa ma jirto arrin ay nagaga sarrayso oo muslimka laga qaadanay أئمدي ووينيد عالم الإسلامي صومبر تنكري وهابي كم ترين أما محام راي منهج كقادرية أي بحال كقادرية عقيدة دايرة كوبانة أحمد بن حنبل وقاطي قادرية مترين يا ابن سينا كم ذا وحوارين نختار وين سوكرمس نأشعري وها وهابي مو هين أشعري ذو ضد كان العقل جاي استعماله وهابي ذو حيكون هذا عقل هو عقلاني نكاس دوك لو عقلاني قال باطل وكذا عقلاني هو معي وأنا عقل كفكرة diintuna waxay ku leedahay aqal boqol aayadood baa quraanka ku jira oo kula aqliga liqoomin yacqiluun liqoomin yatafakkaruun liqoom waxaasoo dhan oo aqliga amaanay iyagu kii bay ku leeyihin caqlaani ninkaas waa caqlaana haddaad wax u sheegto ma aha diinta ma aha waa gaal waa kaanaba waa gaal marka waxaa loo baahan yahay in maxaan ku rahday taa laga baxo oo markaa la qaato maxaan ku rahday taa aynu sheegayno in diintiina loo soo noqdo kitaabkii ilaahay loo soo noqdo ummadda islaamkuna weyn ummadda caalamkuna weyn soo yahay wax la barto